السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا عبد الرحمن عمر كاهن وودن كان أوتوا مقالة كانت ودن أوتوا جوجا وحن ربي ولا الله هي أفكار الصومالية كهلا إن هو هلا شركة يو برنامج أن مدة قلت لك علي إن أفكار الصومالية أكو سمايو أي مانتي صورة جشي إن هو حلقة كهلا وحن نقول ما هنقيد كولا الله هي صورة جليجي سبب محوها إن كولانكا inay muxuu ahaa dadka ummadda Soomaaliyeed meesha joogaan ay u sameeyaan shabakad ay muxuu ahaa arrimaha khuseeya Soomaalida ay ka wala hadlaan amba ay ka faa'iideystaan marka mahadnaq waxa leh dhalinyartaas walaalahay ee maanta jaaniska siisay in ay suurta galiyaan arrin aan jeclaa in muddo dhowr sanadood gaar ahaan sanadkii ugu dambeysay si gaar ah aan isku dhaleeceynayay allaha walaalaha afka Soomaaliga ku hadla lamaad sheergarin waayo muddo 2 sanadood 3 sanadood laga joogo barnaamij afar barnaamij oo telefishinka Faransiiska soo baxa ayaa sameeyay oo ku saabsaneed waxa la yiraahdo psychotherapy yani qofka bini'aadanka shucuurtiisa iyo waxyaabooyinka naftiisa mar walba ku soo gudboonaato shucuurta kamida sidii waa dhalgaran kari lahaa marka barnaamijkaas oo caan noqday afka Faransiiska qaybtan Ottawa laga soo sidaayo ayaa muxuu ahaa dhowr qof aan fahmin ay weydiiyeen ay yiraahdeen af Soomaali maxaad ugu sameyn weeday maanta waxaan rabaa inaan ka yar faa'iideysto jaaniskan haysto in dadka walaalahay aan shabakadaha kala shargareeyo wixii marka anigu aan leeyahay Cabdiraxmaan ahaan iyo wixii cilmigayga ku saabsan aan la shargareeyo marka ku soo dhawaada waa barnaamijkii ugu horeeyay waana hordhac imiga aan ka hadlayo wixii muxuu ahaa khuseeya bulshada Soomaalida meeshay doonaan baha joogaan marka waxaan inta badan ku soo noqon doonaan xoog saari doonaa saddex wax mid waxa weeye wixii dhacooyinka aan ilaahdo haddii ka dhacdo wadankan aan joogno iyo haddii Canada iyo haddii meel kale ka dhacdo Djibouti tahay haddii Soomaaliya tahay aan anigu fikradeeda aan ka geysto anigoo ugu talagalay sidaan u sameynayo inay tahay si yacni muxuu ahaa cashar ahaan gaar ahaan dhalinyarta Soomaalida ee maanta da'doodu ay yihiin 15 iyo wixii ka weynba aan u sameeyo jaanis muxuu ahaa ay britole kaga faa'iideystaan waayo anigu markaan da'da aan ahaan hal waqtiga aan joogay dhulkii Djibouti maan dhowr buugaag baan akhrisan jirnay wayna nagu yarayeen buugaagta Soomaali ay qoreen waliba gaar ahaan wixii anaga khuseeyay meeshan ku noolahay ay ka hadlayaan dhowr buug baa jira oo aad u akhristay oo aniga noloshada taabtay wax badan ka bedelay ay kamid yihiin maxaan ku wada buug Umar Ismaan Raabo qoray le cercle le spirale le talibin somalisme iyo dhowr série oo buuga oo loo jiray la nation 1 2 et 3 iyo revue loo jiray maxaan ku wada Soomaalida ka hadli jirtay Ingiriisi Faransiis ku soo baxaysay oo dhowr isteetinayd meeloogaas يعني وحبذا من كيف عديستي وحنا يسيسي هو ها وحال هذا قلب يعني أنه هذه كذب ماشي عن شو قبه عن يعني هي وحي ترى أن كيف عديس سادرت وحي ذاتك نجوا وين نوسو قد بين أيام خدمات أنا الواجب أن إسساري أن نقول إن هذا كوار الله ماشي شو قبه أن هو ها كرشر كريو كسول وهذا برنامج كان oo barnaamij kooban oo socon doona 10 midil ama 15 midil mar walba oo kalba wax aan qaadan doono waxaan dhameyn kar waayo markaasina inaan barnaamijka dambe aan qaybtii labaad aan ni sameyn doono hadda marka waxaan ka hadli doonaa waxyaabooyin muxuu ahaa aan u malanayo inay muhiim tahay aan la shargareen muddo muxuu ahaa 5 midil oo dambe 5 midil waxay ka qaato hordhac 5 midil oo dambe barnaamijkan ka hadlayo ayaa ni soo sheegay sidaan hore u yiri hordhac waxa weey saddex waxbaan inta badan ku soo noqon doona ay mid tahay muxuu ahaa marxaladda marka taagan anigu aan u malanayo inay muhiim tahay inaan ka hadlo ay dadka walaalahayna aan la shargareeyo fikir anigu aan u malanayo aan isleeyahayna fikir cusub weey waana arintan in mudaan muxuu ahaa xooga aan saaray muddo 10 sanadood qaybta Faransiiska iyo qaybta muslimiinta oo xooga saarnay laga bilaabo maxaan ku radaa 1999 ilaa ma imiga aan oo groupka loo yaqaan Muslim Presence Ingiriis Faransiisna loo yaqaan Présence Musulmane aan baad ogtiin taariikh Ramadaan aad garaysin dhamaantiinba 20 sanadood ka hor shaqadii laga bilaabo Europe 12 sanadood ka horna aan ka bilownay Canada ilaa ma imigana aan wadno website-da aad ka arki kartaan ay kamid yihiin présencemusulmane.com amba muslimpresence.com iyo wixii ku saabsan internationalna aad ka arki kartaan
maxaan ku rahdaa CMEF la yidhaahdo website-ka CMEF colloque international des musulmans dans l'espace francophone CMEF waa CIMEF haddii ka dad gashaan website-ka muxuu ahaa présencemusulman.com link baad arki doontaan CMEF amba haddaad gashaan website-ka taarikhramadaan.com amba taarikhramadaan.com ingiriisi faransiiskaba wuxuu link ku jira labadan site kale aan sheegayo midna ay tahay ta Africa iyo au niveau international iyo tan kale maxamed présencemusulman Canada ay ku saabsan waad ka arki doontaan website-da markaad gashaan waxaad arki doontaan visionka aan soo dhisnay 12 sanadood ugu dambeeyay siiba gaar ahaan North America iyo muxuu ahaa Europe shaqadii laga qabtay laga bilaabo kun iyo dhowr statenkii adu kun iyo 900 iyo 93 shaqadii ugu horeysay ee muxuu ahaa loo dhanna u taariikhna kamid ahaa ay bilaamatay laakiin isaga ka hor dad baa shaqada sii bilaabay isaguna waqtigaas buu 93 uu maanta halkan u gaadhay iyo dadkii la shaqeynayay halkii gaadhan aad arkaysaan bad wax la taaban karaya ay tahay marka warka dadka walaalay waxaan rabay inaan kala share gareeyo experience-kaas iyo sidii aan u dhisi lahayn maskax caafimaad qabta oo Soomaaliya hablo iyo rag dhalinyaro waliba dhalinyartii maanta muxuu ahaa da'dooda ay 15 iyo wixii ka weyn 2016 waxa ka nagu soo marnay walaalkaya oo muxuu ahaa ururada siyaasiyiinta ee Djibouti kamid ahaa ninkaas walaalkay waxaan la shirkareeyay barigaas meelan sugu nimanay iyo walaalahay aan waxaan aad xooga u saarayay aan la xooga u saara 5 sanadood soo socota in aan barnaamij u sameeyno dadka siiba reer Djibouti ku nool oo ka xoreyno dhibaatada maanta haysata oo ah jaahilnimo marka waxa ahayd 2060 hadii waqtigaasi aan bilaabi lahayn hawsha aan rabay inaan bilowno oo ah waxbarasho dadka la soo baro oo choice spiritual ay u sameyn karaan 2006 maanta waxay da'da ay waxay yihiin waa 22 waa dadkii revolution ku sameeyay Tunisia markaan aragno maanta Tunisia wixii ka dhacay amba Egypt inay iska riixeen ateero 40 sano u talinayay dadkii reer Djibouti waxay isleeyihiin anaguna maxaan sidaas oo kale u sameyn weynay oo aan isaga riixi weynay dictatornimo na haysata muddo 30 sanadood oo muxuu ahaa isbedel weyn una dhicin oo mar walba muxuu ahaa qof u talinayo amba laba qof ay dadkii kale muxuu ahaa marka aniga fikirkaygu wuxuu ahaa 2006kii in maanta dhibaatada ugu weyn ayna ahayn qof amba laba qof ay tahay muxuu ahaa jaahilnimo dadkeena in laga saaro jaahilnimada oo wax la baro si ay berito iyagu ay u dooran karaan choice fiican marka anigu xooga waxaan saarayaa barnaamijkan aan sameynayo in ay tahay barnaamij waxbarasho ee dadka dhalinyartaas wax ka bartaan iyo dadkii kale la da'ay kuwii ka waaweynba muxuu ahaa ay noqdaan waxay ka faa'iideystaan marka ummadda in la baro muxuu ahaa hab ay u fikiraan aragti cusub muxuu ahaa xarakaad cusub iyo mabda cusub oo ku dhisan principle marka maanta oo muxuu ahaa xaqan isku nimanay waxa dhowr cisho ka hor na soo gaadhay geeri aan ka hadlay mar horena oo ku saabsan Jean-Paul Noël Abdi oo u soo halgamayay muddo malaha dhowr iyo 10 sanadood haddii 20 sanadood bay hayn xuquuqul insaanka muxuu ahaa reer Djibouti haddii noqoto kuwa dowladda u shaqeeya iyo kuwa kalaba shiciba inuu daafacay marka inaan ka faa'iideysto ninka walaalkeen ee meesha ka baxay meeshiisii balaarneed in muxuu ahaa mujtamaci reer Djibouti mas'uuliyadooda ay qaataan meel walba ay joogaan ay markaasi xaqa dhinaca ka soo wala maraan xaq daradana ay ka soo horjeestaan marka barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa haduu la hayra in muxuu ahaa wixii muxuu ahaa xaqa inagu soo dhaweynayay xaq darada naga fogeynayay taasoo ah muxuu ahaa principle marka haddaan muslim nahay mujtamaca Soomaalidii ay u badan yihiin muslimiinna ay u badan yihiin marka waxaan rabay in xoog aan saaro principle-ka islaamka nabiga alayhi wasalaam wuxuuna faray wuxuuna yiraahdaa haddii walaalka uu xaq daro lagu hayo taageer haddii xaq daro lagu hayana taageer marka markii la weydiiyay ee lagu nabiyow garanay haddii walaalka xaq daro lagu hayo inaan taageerno ka qabano laakiin hadduu isaga xaq daraba ku hayo xoog weyn yahay uu xoog sheeganayo ummadii kale sidee baan caawin karnaa wuxuu nabigu idinku ku joojiyo walaalkiin xaq darada uu sameynayo
marka haddii aan muxuu ahaa Soomaaliland nahay meeshii aan joognaba xaqdara way jirtaa xaqdaradana waa inaan muxuu ahaa aan sidii wanaagsan oo waliba xigmadi ku jirto aan u sameynaa marka ku soo dhawaada barnaamijkan aan walaalahay rabo inaan kala shargareeyo wixii ku saabsan social issue-ga hadda Djibouti hadda noqoto Soomaali halka degan yihiin meesha doonaan baxdigalaanba Soomaaliya ama koonfurta Buuqooy inaan muxuu ahaa ay noqoto hawo caafimaad oo dadka walaalahay aan muxuu ahaa kala hadlo waxyaabooyinka aan u maleynayo inay maanta tahay muhiim aan kala shargareeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.